والله walaalkay xoosh nin in adeerkaayo waa nin lalkasaa waxaa tiri waad cayday miya adigu anigu shakhsiyan nabigeena alayhi salatu wasalam xilligiisa waxaa jiray nin alkooleysta ah khamrada cabi jiray maalin walbaa la keeni jiray maalmaha ka mid ah la keenay markii la keenay bay caayeen nabigeena wuxuu yidhi alayhi salatu wasalam laa tuciinu shaytaana calaa akhiikum fa innahu yuxibu allah warasuulah ninkan alkooleysta ah shaydaan ha ugu hilinina walaalkiin shaydaan ha ku caawinina ha uga hilinina shaydaan walaalkiin waa nin allah iyo rasuulkiisa jecel marka xoos jibriil shakhsiyan anigu ii kaada kama horjeedo asaga shakhsiyan ii kaadaade haa kama horjeedo shakhsiyan laakiin ninka caynkaasa ima qalde walaalkay wixii waa kala jirtaa shakhsiyadda hadde ma wada hadalnaa mise waad xanaaqsan tahay keliya haya hadal adaan ku dhegaysanaya hadal هاي Columbus Police ninka numberkiisu waa 614 8153547 Columbus Police numberkaaga waa u jeedaan 614-815-3547 numberkaaga waa la hayaa waxaan ku yidhi si waxaan ku yidhi dabaya haye malal ka saariya lacag siiya waxaan ku yidhi ma Soomaaliya ka tugsada fiiri malal ka saa ka tugsada aye adiga fiiri waxaad ka xanaaqday nin adeerkaaya xoosh jibriil waxaan ku yidhi ninkaas هذا نين الكوليستا دستور waxaan ku yiri nin alkooleysta dastuur noqor ma dhigarna cida lalkaas culumay sheegan jirtay oo xar baa la oran jiray quraanka dhigi jireen diintay dhigi jireen diintii ma ka tageen dastuurkii ay ka dastuurkii iyo shariicada islaamka lalkaas ma ka tageen shariicada islaamka ma tuureen fiiri shariicada islaamka iyo quraankii lalkaas ma ka tagay
ورمايا وناجي يا شرفتي يا قرانكي يا دينتي لغو يغاني للكسة ما كتغين ما مورياني ما يدورتين مورياني ما يدورتين يقالني مو ورهيدا للكسة انكو يريدد وحي هانشرين علماء ما موريا ما واحد تاي كوي خير كدرنا وركوي خير كدرنا مياتا ولا الكسة قبيلك ولي تميال هاي مايا قبيلة في عنا للكسة دين بكو عام بحي علماني بكو عام بحي قرآن بكو عام بحي شرف بكو عام بحي دينتي ما كتكتين للكسة ما كتكتين اوكي وبدا الصوماليات وموريانتي كوي خير قدرنا للكسوي هورتا كانوا نقا دافا للكسه وادد شرف له او علماء او دينا او شريعه الاسلام كنا ددك ugu yeeri jiray hadda waxa weydiinaya lelkase waxaan hadda anu cambaaraynaya farmaajo cambaaraynaya lelkase haduu ninka dooranayo culumadii lelkase abwaanintii lelkase akhyaartii lelkase aqoonyahankii lelkase dictionary kan nin marixana ayaa tarjumay oo beesha wardheeda oo la yiraahdo Axmed Xuseen Mire oo reer Columbus ahaa dictionary-yada ka horeeyay oo luqad carab ee ingiriiska lagu tarjumay waxa tarjumay wiilal ilmo xaasha la yiraahdo lelkasa quraada ugu badan Soomaaliya lelkasa u badnaayeen dadka ugu diin badan lelkasa ahaayeen sababta maxamed cabdalla farmaajo nin alkooleysta oo dawladda Canada ay ka tuurtay laysinka ka tuurtay alkooleysta cabahaya dhargaayo isku xaarayo isku kaadina in la dhoo shariicadii islaamka adiga dastuurka noo qorahayo soo qor anu intaasan ka hadlay lelkasana ma aayin Soomaali kalena ma aayin ma maqlaysaan fahan ninkaas lelkasa alkooleysta isku xaara iskuna kaadiya xunqaacana marka uu baasha cabo in la dhaho dastuurka Soomaaliya soo qor anoo Soomaali ah oo muslim ah baa ka horjeestay mana taageerin وانا عيب للكسواب علم بوليه اخيار بوليه اولي بوليه وحوليه تجار بوليه قناعسته بوليه ما لقى واي marka te dastuurka malaha diin cusub uu noo soo qorayaa te wixii gaalo oo ku raacaya hal arkad ilaa gudnay kolba uu dhahaa hawiye dastuur aan ku wareeriyay oo madaxa aan isugu dhuftay iyo Soomaaliba yaan u qoraad laakiin bible-ki Kenya iyo dilaa gudmay waxaan u keenay buu dhahaa iyo kii maxarada dastuur aan hawiye ku wareerishay oo madaxa uga qabsaday biri laba isugu dhufay habar gidir baa maanta socunayso yiraahdo ilaa gudmay habar gidir baa soconayso oo la seenin cayri loo siiyay kursiga ساعة كيا تايست لح والسير يا وحلا قصي سوبرلاند يا سلام لح والسير صدق حساق بالسي هل نقول بيرسي بالسي هل نقول بهانت بالسي هل نقول سجل بالسي لح والسير بيهلان لما كي سوبرلاند هدي لك معي وحكوا صهري هذه لا يكيد ما هيو يريسو بوير والعيدي يريسو نين هبر قدر أيا كهلا هدرتان أنا كم هالين إله مرقات وقت أنا وحى إري بنت أيام كنا عاي وشيء كذي أنت كل يعني يريسو نين هبر قدر كهلا أو يري إسبارة موسى الصودية الحو يفرن جري وقصلي أو وقصلي إسبارة بس حسست إسبارة موسى الصودي إسبارة هبر قدر إسبارة عير إسبارة مريحان إسبارة مشرتين إسبارة صح حسست أنا يا أري إسبارة مركان حسستي ينسهين وقصنا مركان دلائك كده حتى دلائك حقص لسه بحد دوادي كوطالع مركان أروح كمشي الكسر معاين أبقى معاين كبربا هذا سوق اللي سخطك أبقاله هذه لا يكون ولا شيء قبدي أبقى خدك سوق ورينا قبدي أبقى لاو ورينا قبدي الصومالي لاو إيه كذا هرتوها قبربا معايا قبل أبغى معايا سوق أو راسي أطلع يا عرفت أنا كذا شو 2529 هلو
ولا لو عليكم السلام حقيقة صادق يسا ولا لي آد بانو في عنا آد بانو في عنا هاي روب بكدا يعرض الروب الله كبر لي إله الروب سي إله ضلكي الروب سي عرضك هذا روب بكدا يعرضي إلهي وقبوج إلهي وقبوج الحمد لله رب العالمين ولا اللي يورن ما واحد ربط إذا عدى حرطة إنها كان صوت في الرد هذا كدبتي والسرد عصب ولا اللايف بان كشرا اللايف بان كشرا ولا اللي صومالي ما حد كل دردار مسا دعي سني كعل هذا الكاي والله رياقي حيه معاتري بنتلان يا لا ورقي بدي يا لا ورقي صح سفي عن أرنتاس قروا السير لو قاركا هذا waxay leeyihiin qabiil walba wuxuu leeyahay dawladii kalsoonida waa kala noqonaynaa maxaa yeelay wasiirka nalama siin Soomaaliya 4.5 baan ku heshiiyey تياتركي أكتسي بو كدعي ها معاد كلا داي waxaa la leeyahay nimanka askaraha qaarkood yaa maalintiina direys qaba habeenkiina qaraxyada geysta magaaladii muqdisho agta waxaan ogaa iyadoo dad معاتر ولا لا معاتر قش النيوكلير مياه لو صار شباتر مقدشو
mashquulsan waa la haystayaalka la haysto waxay ku mashquulsan yihiin reer hebel iyo reer hebel على قبيل كتب كتر عليه كتر عن انت مسكين فرماسي رئيس الوزراء حاس كجت عن وطن كان بلايا قعدت بتسوي مصر وعرفت مصر السعودية مثلا واحد بدأ يقول شيء واحد بدأ يقول واحد بلاها كلها واحد قاعد يقول واحد سلي واحد يقول يقول واحد مراكب تشيله سوالي بحال صار بلاي رجالي وما كحنيات كانوا بيقولوا أنا عاقب كل العربة ما فهمت marka gabdhaha in lagu wareejiyo ma aaminsan tahay waa gartay ها وايا ولا انا كصوعي هدي الهي كدبهي وايا ولا لا يقرأ ويقرأ الساكة ساعة ملا ما قربت تاي أو في عن لو دولا نكره ولا لا وإيمانا يا خير الله كسرية الله الله يلهم ما قرأت صح 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 dadka gudaha jooga ma ogyihiin saas in dalka la haysto ها walaal صح صح ان شاء الله تعالى ولا اللي خير الله كسوق صوعيه ولا اللي خير الله كسي حنيا بدنا جلس أنا جا إيمان هاي الرياضة هذا الله يقدر بيجي يقول رياضة ما قرأت واي ولا اللي خير الله كسي إن شاء الله وكسوع يهدي له يكيد ما خير الله كسيه تلك يرى وتشعلها إن شاء الله تعالى خير الله كسي ولا لي واي ولا لي واي ولا لي الله كعزيه الله كشرفه الله كرامي ولا لي مقحوتي هذا هانسان ولقين خير الله كسي ولا لي خير الله كسي ولا لي خير الله كسي ولا لي dalkii waa la qaatay ma fahmayaan waa indhalaayin indhaha alla tiray dalka alla horeysta miyaad leedahay قبيل فرماجة وكعرر هديس الصومالي تاجرين مياتري ولا لي
walaalay waa yahay raggii Soomaaliyeed xiniyo male caqli male karti male gaalkacyo maantay ciidamo gadooday ayaa waxay baaq u direen xarumaha dawladda waxay dheen albaabada xira haddii kale waa in soo weeraraynaa marintaa ma jirtaa haye ها qoryaha gabdhaha miyaan ku wanaajinaa waxaa tiri garawa iyo gaalkacyo ilaa boosaaso ilaa meel walba Soomaali maana maxaa haysato masruufta dadkana isku dirta markay doontana dagaal bilowda qabiilada isku dirta hub xoog la soo galisa marka Soomaali ma xukunta miyaad leedahay waak wala shay musaabiriin gabdhahan ka qabanayaan maanta gabadhii waa ka baxday ar gabdhaha gabar baa jirtay iyadoo inay gabawyo tahay aan malaynayo siyaata laga soo wacday halow السلام عليكم walaalay khadkaad ku jirtaa magacaagii noo sheeg xaliimoy dawlad baa la doortay Soomaali gabar baa hadda ka soo hadlaysay Garowe dalkii waa la haystaa bay tiri raggii iimaanka alla ka qaaday tiri dalkii gaajo iyo silic iyo saxariir xeebihii bay ka hadashay dhulka ay joogto Garowe laani Puntland maraakiib baa qaadatay shacabkii wax ma haystaan xamar hadda nuclear iyo qashinkii baa lagu shubay meel walba qashin baa yaala dadkii waa la isku dirahayaa amxaaro iyo qurun iyo bakti baa loo shaqeeyaa kaalaya dalkiina xoreystay tiri raggii maxaa ku dhacay annaga qoryaha nagu wareejiyay tiri dawladdii durba dad baa cambaaraynaya maxay kula tahay adiga aniga waxay la tahay hadda dadka cambaaraynaya dulinimada ay ku jiraan shalay rabaa inay ku jiraan ma garan waa garta haddii Soomaali ay rabto dulinimada inay ku jirtana qabiil iyo qof ay socaysato ma fahan waa garta hadday rabto dulinimada inay ka baxdana wax kasta oo yimaada dul qaadato dawladeeda ay hadda ay isku dayayso oo haddii ay nin xun dooratay hadday mid liita doorataba waxa weeyaan in loo dul qaato kan xun oo liita meesha fadhii dooni maayo uu ka bixi doonaaye tay ma la siiyo wax qabashadiisana hal la arko ma garan waa gartay qabiilada Soomaaliyeed aniga qabiilkayga ay ku jiraan waa ka caroodeen wasiiradii la magacaabay wasiirna lama siin wasiir adiga qabiilkaaga inaan la siin anigu waa la qabaa oo maxaan galabsadha walaalay waxaad galabsateen horta madaxweynihii waad haysataan haye way ku magacaaban yahay inkastoo madaxweyne qabiilusan hayna madaxweyne Soomaaliyeed yahay haye ها ولا لا يسوق وعي التلفون باكو جراي بالك اللي يراهدو ميدا كاله نميو بدان iyo dacwo badan baa la ka tirsanaya ma garad haye suntii hargaha miyaanahay suntii hargaha tihiin aad baa dadku maaragtay indhaha kugu fiirinaya adiga qaladkaaga dadka soo wacaya waan u jeedaa ardayda waxa arkay indhaha haya hadaa lagu soo anoo qalan baa waxa sidii jirin ka soo qad kongo ay aad u eedaynaya ma garad haye تلميذ ما دام أساس تهين هذا ما أنت حكم كي سكة طبعا كل نقطة ألا إني دي بقولنكم نسوا ماليات بها هذا الشعب كيسونا كان صدي لكنه ما جعون كسر كان ما أهل إلا ينسيو هذا الصومالي كوكل عيسى كوكا بابا يسوع هنا الصينين مريحان شو أبي أكبر وفرحتنا وهنا ما رحت وهنا هم بلينا يا رئيس الوزراء إنه سن حلنا مريحان وكسر دارين oo walaalay abaarihii hadda wixii aan xaq aan u lahayn lama siin taasna ma waxaad leedahay wixii aad dawladda ku leedihiin
dhismaha dawladda iyo yani geda iyo meel walbaba hal xeel lagama qodo hal iskuulna lagama dhiso hal isbitaal lagama dhiso waxaas ma cadaalad ba maya taas cadaalad maaha waxaad xaqa aad soomaaliya ku leedihiin ama aad ku leedihiin dawladda oo shacabku xaq ugu leeyahay madaxdoodu soomaali baad ka mid tihiin shacabkuna shuqul kuma laha siyaasad dalka soomaaliyeed buu dhashay waana soomaali reer hebelna lama dhihi karo shacabka soomaali wuxuu xaq u leeyahay oo iyagu helayaan bal adiguna xaq u leeyahay inaad heshaan wax dadka bursiina ma liidin wax ka yaraysiina ma liidin ma fahan walaalay ninkii farmaajo ah mareexaana xataa ma salaamahayo oo qof mareexaana ha ii soo dhowaan buu leeyahay cuqdad buu ka qaaday sidii loo lahaa isagoo isla yaan lagu dhihi qabyaaladiiste salaanta inuu naga qaadi waayo ma xaq ba salaanta inuu ka qaadi waayo xaq ma ahan laakiin intii soomaali ku eedayn lahaa inuu inka cararo anigu waa la qabaa xagee buu cararaya dhihi lahaa shalay soomaaliya annagaa soo dooran annagaa keensanay maantana qabiil buu xigsaday hadday soomaali ku qancayso ay habbi ku noqon oma malaynayo qof soomaali maanta la qancin karo inuu jiro haddii wax kasta loo sameeyo ma fahan haye because kulli waa wada siyaasi kulli waa wada hayeen kulli waa wada hadal kulli waa wada aqoon-yahan kulli waxay wadaan siyaaso islaam walba gurigeeda dawladda ka maamulaysa oo say rabto in laga yeelo ay rabto inay hesho ma fahan haye cid marka xukumi kartaa iska yar absolutely ama qancin karta laakiin he try his best inuu ku qanciyo haddii soomaali ku qanciyso inuusan nin qabiil ahayn uu nin qaran yahay intaasoo jeer baa dawladda la damcay in wasiirada lagu dhawaaqo waa la kala bedelayay waa la shaandhaynayay mar qabiilooyinka ayaa la harhaalli kuma nihin mar maamul goboleedyada la harhaalli kuma nihin mar guddoomiyaha baarlamaanka iyo rag siyaasiyiin iyo xildhibaanaa diidana mar waxaa diidanayd balaayo iyo baas maxaad dhahaysaa marka adigu horta anigu oma hambalyeynaya waa u tacsiinayaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha maxaa dhacay waxaan ugu tacsiyeynahayaa dadka soomaali inay maanta xukumaan raba oo raba inay hogaamiyaan oo dadkaan arkay raba inay dal u dhisaan oo dad u dhisa oo weel ka soo saaraan alla ilaahay aad baa dhib u haysataa ilaahay ha la garab galo dad la xukumi karo iyo dad la maamuli karo iyo dad la hogaamin karo midna meesha ma joogo soomaali dal iyo dabadba waa dad cun waa garta in ra-iisul wasiirada la soo dhisi waayo oo inta ay ku qaadatana waxay ku kalifay nimanka soomaaliyeed iyo ragga soomaaliyeed iyo baarlamaanka iyo intii xaaran ku naaxayd oo meesha hunguri kaga baratay oo intaasoo dawlad ahayd la soo joogtay oo intaa meesha fadhiday oo shanta farood inay dhuuqaan bartay oo aan dal iyo diin iyo dad midna shuqul ku lahayn hadda nin abgaala oo loo magacaabay wasiir yariisow nin habar gidir baan ahaa lahaa cajaladii hore oo ka hadlay wuxuu yidhi isbaaradii muuse suudi ayuu fadhin jiray buu yidhi anigu ilaahay markhaati kamay arrintaas ilaahay markhaati qiyaamaha ii soo istaagi maayo waxaa ku khasbay ra-iisul wasaaraha inuu soo magacaabo hadduu nin xun ahaa iyo haddii aan la rabin iyo hadduu fiicnaa anigu wax kama sheegayo qof bil'aadana laakiin waxaa ku qasbay oo watay waa baarlamaanka oo ku qasbay raggaan oo meel ka mari waaye hadday talada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay noqon lahayd nin meesha horay xoola kaga cuni jiray ama joogay ama soomaali rabin ama shacabku rabin maba aysan keenin aqoon-yahan wada educated oo wax yaqaano oo wax bartay oo wax garanaya oo dalka wax u qabanayo oo ayaga lamid ay keensan lahay laakiin waxay la keensan waayeen anaa shala reer hebelaha anaa shala baarlamaanaha anaa ku doortay anaa ku keensaday anigana ninkaan keensada waa inaad ii gelistaa kulligood saasay ku wada yimaadeen hadday darogaystaayeen iyo hadday alkalosteen shacabka soomaaliya waxaan u sheegaya inay kala xisaabtamaan baarlamaanka ragga baarlamaankaa soo celiye ra-iisul wasaaruhuna ma soo celin madaxweynuna ma soo celin waa inay ka dhisi waayeen xaalad adag bay isla galeen 10 jeer bay isku noqdeen shir bay u fadhiisteen waa ka kala keeni waayeen in ayaga dhaafaan ma fahantay hadday kala dhaafaanna waa isqabsadeen iyo waa isdirreen baa imaanaysa ma garata haye waxay ku kasbanaadeen inay waxoodana u yeelaan waxna ka soo reebaan waxaa la leeyahay labadii halkii jiga 2 nin baa la siiyey oo haddaan 2 nin la siinin oo kii la iskugu daro dadkii shaqo wada heli mahayaan kii baarlamaanka shaqada jeeka qaadanaya yidhi wasiir ha la iga dhigo oo baarlamaanku ku qasbeen maantoo yidhi asagoo baarlamaan haddana wasiirka ha la dhigo inta 300 iyo xogaagaas oday oo meesha joogta dhowrka wiilo lagu soo daray hadda cusbaan mooyaane soomaaliya xal ma gaaraysa ha dul qaadato inta ay alista xoogaa soomaali cagaha dhiganaysa nimanka masaakiintaana faraha laga qaada dambiga yaa laga dhamaysanin 300 oday iyo xoogaagaas la xisaabtama waddanka wuxuu ka degi waayey ama ka joogi waayey ama shalay dhibta ku waday isagoo maanta kan markay la doortayno oo qadartu ilaahay keentay oo xataa qaar lahaa maartay aad arkayseen waryaha fal iyo sixir baad ku timid
waxa weeyaan calafka u galay calafkii u galay oo shala ku doorteenna oo ay ku ammaanayeen maanta ayaga iska qastaarinaya because waxay ku qasbayaan nin ayagu rabaan oo danahooda filinaya inay keensadaan nin baarlamaanka ku jira inay keensadaan saddexda boqol iyo xogaa odayaashaas oo ku qasbay ilaa qof iyo cod la helana soomaaliya xilkaas way ku jiraysaa xaqdarradana way ku jiraysaa cadowga ka badan intaan aragno iyo dhibaatada kaloo naga haysana iyo dadkeenu iyo meelba ku dhammaanaya abaar hadday noqoto hadday bad noqoto hadday biri noqoto hadday South Africa noqoto oo meel walba ku qalqalan Soomaaliya intaad u danaysaan nin hebel baa la doortay ha ku haynin nin hebel waa taraash bari buuna baxaya kana daba shaqeeya iskana tuura labada ninna eedda maanta dhan ku wadinina baarlamaanka la xisaabtama ninka shaqada la dhibana la xisaabtama hadduu shala tuuganimadii wadana Soomaali codkeedu daqiiqad looga tuuri karaa meesha oo u sheega madaxda la ninkaas uu shaqadii ka soo bixin laga tuure adinka nimanka meesha doortay dadka geysateen maanta maamulka la wada laakiin hadduu minina oo ku duminina rag bay keeneen reer hebel bay keeneen ma fahanteen isaaq waxa la siiyay waxaan ka wadaa Somaliland andhehe ayaan u gafine 6 wasiir baa Somaliland la siiyay 3 isaaqa hal gudubiirsay ah hal dhul baanta iyo hal warsangaliya shiikhalna hal kursi lama siin arintaas maxaad u aragtaa kursi aniga maba ka hadlahayaba aad baan ugu hambalyeynaya in reer waqooyi wax la siiyo gudubiirsayn wax la siiyo aad iyo aad baan u hambalyeynaya waxay noqdeen nin maxaa la yidhi hal gurra nin u dheelmay dhinacna ma fiyooba gudubiirsayn wax la siiyo aad baan ugu hambalyeynaya waana la heleen isaaq haddii la siiyo isaaq waa rag Soomaali ah waana rag dadka dalka Soomaali xaq u leh in la siiyana waa ku mahadsantihiin ayna imul rasuul siri second aniga oo ma fiirinaya qabiil iyo meelu ka soo jeedo wuxuu soo jeedaa ninkan wax la doortay nin dadka u qaban kara ma yahay waxaan ka hadlayaa nimanka dadku ay ka hadlayaan oo leeyihiin niman la yaqaano oo tuuga ahaa weeyaan ninkii la doortay oo leeyahay waxbuu qaban karaa waa reer hebel hala joojiyaan ugu qaba hadduu wax qabanayo reer hebel maaha waa Soomaali laakiin kan wax qabanayn oo tuuga oo belowga oo kaadibka oo dadku taqaan ugu ma aqaaneen iska qabta kaas kala tashada ra'iisul wasaare kala tashada madaxweyne kala tashada baarlamaan wayda u soo doortay way ugu soo celiyeen steebuu ku yimid waa soo bixiya taariikhdiisii shalay soo bixiya sawiradiisii soo bixiya hadalladiisii soo bixiya qabashadiisii ka dooda iska tuura adinka xaq u leeyahay iska tuurtiine maxaa labada nin ugu dhiganta dalka inka xigaan dalka adinka shalay u dhiibateen maanta adinka ka tuuran kartaan nimankaan u dhigta haddaysan anfacayna iska tuura maxaa hal qof leeyahay hal qof waddanka iska leh muxuu hayaan ayagoo muruxay meesha yimaadeen xoolahoodiina waa ka tageen ma fahanta waana wada saxiixeen in adinka waxay qabtaan bay adinka adina la shaqaysiin baa la rabaa in xal qabsatiin baa la rabaa ma fahanta laakiin waxa aad weydiinaysaan maxay yihiin oo ka shisheeya ragga aan waa la yaabana waa shaqsi Soomaali qofka kan okay kama badna kama weeyna waxa ka shisheeya aad raadinaysaan maxay yihiin waa qabiil allaha ku gubo hadaa Soomaalitiin waan ku dhamaanaysan hadaa qabiil tahay waxaan ku sheegayaa in dabcasaro hadaa qabiil xoog badan oo mareexaan ah dawlad ah haddii Soomaali kale ay xoog badneed ay lacag leeyahay haddii Soomaali ay qolo kala jibin jirto ka xoog badneed dadnimada ay sheeganaysan ku Hindiya ku xiran waa rag adinka kula dhashay xoogga Soomaalida kale ugu dhaaraysa kala soo baxay kuwaas badda lagu leeyahay waa Soomaaliya kala soo baxay kuwaas Soomaaliya kala soo baxay kala xisaabtan laakiin walaalka oo masaakiin ah oo hooyada iyo habayarta iyo isaga ka soo jeedaan aniga reer hebel baalay saasaan u geli jiray saasaan madaxa ku dhifan jiray saasaan yeeli jiray bullshit taas hadhiina waxaad samaysaa ragga xisaabta u baahan la xisaabtan tol beele dadka Hindiya u dhaaro wiilasha gafuurka intay u geliyeen bacda si taraashka u geliyeen ka soo baxa intii naas lafa oo isxeysanaysay mid aan ka dhalan kuma jireen kala soo baxa xoogaa sheeganaysaa kala soo baxa taarka Suudaan bahayna South Africa midiya lagu baranay sida arigii waxarihii kala soo baxa hadda xoog leedihiin hadda Soomaaliya aqli leedahay laakiin xooga iyo dhaarta isku dhaaranaysaan xagee ka soo baxda markii dadka adduunka in la xisaabtami karin hal caaw shimbir oo Mareykan leeyahay hadday Soomaaliya ku dhimato Soomaaliya dhulka lagu darayo hal khabar ah oo 8 iyo xoogaa jirta hadday Soomaaliya caaw qodax yar muddo intaasoo carraa loo baabuinaya markaas looga soo qaadanayo habar wiilashiini waxa la yiri habar maxay tahay Mareykan leeyahay ama dog day Mareykan leeyahay hadaad ugu caawa qodax muddo 2,000 Soomaaliya u dhimanaysa dhiigga uska la inka qaadiyo xoog badinida qof walaalka Soomaali ah waayadan uga mudaharaadaynin waadan banaanka ugu istaagin waadan uga soo baxaynin waa ku xabsada ku wada dhimanayaan xabsada ka wada ooyayeen war liibay ku jira war miyaan tirin kara you guys know smith inta meel ku jira boqolaalka banaanka joogta kumaanka lamadaha xabsiyada adduunka ku xarin Mareykanka intaas oo boqol baa ku jirta banaanka inta soo istaagan maxay ku xiran yihiin ma dhigi karaa oo dhalinyaro u cid walba leh ma fahamtay war ayagii baa si xoog leh reer hebel buu reer
oo ay kugu kala dilo qabiil markaasuu qabiil u kala isticmaalaya oo hubkiisu dhiibaya oo hubka iskugu dhiibaya maxaad u aragtaa hubka faraha badan ee Ethiopia ay ka dajinaysa Kismaayo Baydhabo Gaalkacyo beledweyne Jawhar Xamarna ay ku soo gubtay qaraxyada ay ka dhacayaan tiyaatarkii agtiisa iyo meel walba hubka Ethiopia ku gurayso qaarna ay u yeeranayso Soomaali kala shirinayso walaalay maxaad u aragtaa caqliga ilaahay ku siiyay Allah ku barakeeyo Allahna ku barwaaqeeyo adiga ubadkaaga iyo reerkaaga hadaad leedahayna hadaad haysan Allah ku siiye maxaad leedahay Allah ku barwaaqeeyo Soomaali dadkii oo dhan baa hadda ku ducaynaya aad baa lagu duceeyay maxaad ka leedahay hubka la isugu dhiibayo hadda arrin cusub la bilaabay hubka la isugu dhiibay hubka uu dajinayo Ethiopia wuxuu rabaa inuu ayaga isugu dhiibay cid kale kuma soo dhiibay cid kale ma wado wuxuu rabaa inta isla degtaba inuu hoos u kala shiriyo oo yiraahdo maadaw reer hebel ku gooteeyo maadaw reer hebel wasiir la hebel la siiyay anaa lagu siinin ma hebelaw ba xaq la siiyay adiga lagu siinin makana laga qadiyo la Allah kugu yeelay waxa tahay ninkii reer hebel ay qatar tahay taas wuxuu ka taqalusi jiray kubiyo xoolaha anaa ku ay ka shaqayso wadankan oo yuu ka shaqaysan ma dadku qixinaya hooyadii iyo walaali gaalkacyo kale magaalada ubuucda dhaqaalaha Soomaaliya bartankay u ahayd caawana waa haawanaysaa bal ka waran dawala isugu dhiibay waxa la rabaa in la dhaho habar gidir iyo waxaad kala tiin ma jeerteen ma habar gidir baa adaa ma jeerteen gaafici ho hubkan ma jeerteen ma habar gidir baa ka fiican ho hubkan markii labadooda dhinac la isku bayo isku dhamaadaana ay baba iskaga dhigaan oo yaydooda iyo hooyadooda ay ku laayaan eber kudane gabadhooda yar rakaan ay ku kufsadaan oo lagu qoslo baa leeyahay anaa ku xukumee horta qashinka ii qaad ii xamaad la faan gabar hadda ka soo hadlaysay Garowe saad sheegaysa ayay sheegtay waxay tiri dhulkana maxaara xukunta iyo sirdoonkeeda Soomaalina ma xukunto yes amxaara xukunta wadanka amxaara hadda wada shiraysa amxaara wada yeeraysa madaxda hadda waxa lagu xukumayaa oo la leeyahay qasab looga dhigaya Ethiopia waa inaad ku tagtaan ilaa iyo maalintii oo farmaajo la doortay ilaa hadda waxa lagu qasbay Ethiopia inaad tagtid weeyaan Ethiopia wariyaa waa inaad tagtaa meel ku gabadhu leeyahay shacab u taagan buu u baahan yahay yiraahdo madaxweynaha Ethiopia cagaa ma dhigi karo yaa u baahan yahay oo yiraahdo ma aadi karaba u baahan yahay oo yiraahdo inaha ma saar kana anaga Ethiopia madaxweynaha anaga Ethiopia waxa uu loo baahan yahay laga mudaqrada la dhaho lagu mana qasbi karo mana tagaayo colaad baana naga dhaxaysa ilaa iyo xootil qiyaamo mana tagay madaxweynaha anaga Ethiopia waxa wali lagu tagaynaya sida tagweyda Ethiopia hubka waxa loo dajinaya dalku soo galinta lagu maayo dadka because muusan yeelin wixii hore uu dadka uga barteen inuu Hurkiyata uu Soomaaliya ka dago waa wax lagu soo dhaliyay Hurkiyata siyaasad shishaka muusan haysanin maanta waa lagu soo dhaliyay waa la soo farfara ma fahanti madaxweynuhu carartii hore ma qabo oo hore u qabay waxaad arkaysaa isbitaalka Madiina oo kale taariikhda waxaan ka dhicin buu sameeyay habeenbar ayuu booqday qaraxii dadkiina dul istaagay ka bacdi wuu baqay markii uu ka war helay in bakaaraha Malaysia rabtay inay shaqo loogu diyaariyay meelo badan oo qaraxyada madaxtooyada laftigeeda la rabay in lagu qarxiyo lagu dilaayo ilaahay fashiliyay amisom oo rabtay inay ka takhalusto haddana waxa wararka hoose aan ka warhayaa in dawladaha Ethiopia iyo Kenya ay doonayaan inay martiqaadaan cuntadana sun ugu daraan hadda berita ayuu ama baxaya Kenya in la samayn doono ma kula tahay waa gudiya hadii chance loo helo ma la daynaya lama daynayo wali waxaan daynaynin kuwa Soomaaliya lagu soo diro oo kala la leeyahay horad farmaajo soo sumay adu reer hebel baa tahay asaga qaara jireer hebel baan ku saaraydaa ma fahamtay lama doonayo Soomaali baa loogu dhiibaya hadii aan Soomaali loogu dhiibinay maalinkii la doortay Soomaali baa waardiyeynaysa muu dhaheen amiso inay ku xanaaqdaan arrintaas keentay maanta Soomaali baa qarax Muqdisho ummadii masaakiinta ay ku dhameynaysa si asagu intuu soo istaago hawada loogu daro ma fahamtay oo loogu dilo loogu dhibaateeyo ayaa kumaantumka masaakiinta iyo lagu laynayo aan u jeedin asaga kaliya u arka dad qaymo iyo xoog iyo aqli iyo dadkoodaba wuxuu qaban lahaa loogu dhameynaya hal shakhsi in la helo si loo dilaha hal shakhsi baa loo dhameynaya ma fahamtay oo qarxi loo badiyay ilaa haddana Soomaalida baa qaylinaysa qabiil ka qaylinaysa oo u jeedin waxa weeyaan haddii Soomaali taariikh taqaano Eurobiyaankii hore iyo Yugoslaavia wadamada la yiraahdo awoodaha ilahan jiray maanta waxay ku dambeeyaan way garan karaan wadamo dhan oo jiri oo magacyo lahaan jiray hadda magacyo kale leeyihiin dad kale la wareegay waxaan idin sheegayaa inay berida Ethiopia iyo dad la mid la wareegi doonaan oo adduunku diyaar u yahay dalka Soomaali in gaalnimada laga wada dhigo oo ay wada gaalowdo dal kale iyo lala wareego magac kalena loo sameeyo ayadoo dhan lala wareego ma fahantay
ninkii caqli lahauna garo kii shil inuu ku qaato intuu meelaha soo fadhiistay ree hebel wasiir hebel inaad aragto dadkaaga maxaa tiri maskaxdaadu maxay ka weynaataa gabar baa waxay ku leedahay Soomaaliyeed Faadumo waxaad u qalantaa madaxweyne ku leedahay wayna ku ducaysay kulligoodna waa ku ducaynayaan in allaale inta khayr halkan ku jirto oo dhan khayr bay kugu ducaynayaan maxaa tiri Soomaali ka weynaada abo bilaash haddii la igu siiyo bilaash haddii madaxweyne la igu siiyo iska dhaafay milyamaan lacaga haddii la igu siiyo caawa ilaahu Soomaali madaxweynaha iga dhigay iyo qofaan ka naxayo midnaha madaxweynaha uga dhigay waraaba madaxweyne looma noqon karo xalaal caleeg ragguba ha ugu darnaadaane xalaal caleeg horta waxa weeyaan madaxweyne looma noqon karo bilaash haddii la igu siiyana oma noqdeen ma fahantay qof odaygana ma geeyeen walaalkayna ma geeyeen haddaan kurunta kuu sheego because of waxa dad loo noqon kara madaxweyne meeshaan ma joogaan dadka ii duceyna ilaahay ducada iga aqbalo ma fahantay qof Soomaaliyeed baana gabar Soomaaliyeed baana waxa meesha ku dhamaanay ama ku gablamay ama ku rafaaday ama ku baabaayana waa gabar Soomaaliyeed iyo hooyo Soomaaliyeed iyo wiil Soomaaliyeed waxa ku gablamay ee ku rafaadana waa annaga waa gabdhaha Soomaaliyeed ma fahantay kaandalnaba nin baa wuxuu iska dhigtaa gaashaan markaas hore u dhamaada anaguna markaas aan tuqoon halkaas hore u sii gabaan gabadhan dhalana hore baa mid kale chokora u sii fuula horta halka waxa ku dhamaanaya gabdhaha Soomaaliyeed oo calanka u sida qabiil ama u sida nin adalku si qabla waxaan u sheegayaa gadaal isu fiiri hooyada walaasha raadeerta gabdhihii Soomaaliyeed mid oodayso oo la kufsaday mid la dilay mid la gablamiyay mid gaajo meel la yuurta marka qaxootiyada u fiirsataan dadka gaajaysan u fiirsataan dadka qaxay u fiirsataan dadka abaaru ku dhaceen u fiirsatiin boqolkiiba 5 ama 2 rag ah inta kale waa dumar iyo caruur weerista rag intee aadeen ma isweydiiseen meel la meeri jiray nin sheeg kara malaha nin sheeg kara malaha waa dumar waayid meeshan dumarkan jinno ilmaha xambaarsan yaa ka dhalay nin ma agtaagno ma dhaa ilmaha caruurteeda waa 5 cunug oo 7 cunug oo wata shisa baysal kaligeed bay ordaysaa marka waxay ni sheegayaa qofkii maanta qabiil iyo wasiir ka fakarayo waxa tiraahdaa ilaahayow rabbiyow mitalka Soomaali wuxuu qabtay rabbiyow noogu dib ilaahu ku hagaaji waxaan idin sheegayo kaliya kaga tagaya hadalka ku bari dadku gabar Soomaaliyeed baa halkan kula kaftamaysa waxay inta qosashay oo tiri bay tiri aqli badan ama majarteen baa bay tiri ما شاء الله تبارك أنا أقول مشيتين ماهي دارود ماهي هوينا ماهي صومالي بارحي صومالي بتقال صومالي بارحي هاي بارك الله ما شاء الله بارك الله ما يصدقين لكن وكلنا كله ده صودا قبل بارك الله ما شاء الله صودا بارك الله صودا صبرك هاي صومالي بارحي أبا كلنا ملي أو كلنا ملي تل كلنا ملي عد كلنا ملي magacaygu waa Soomaali inayahaygu waa Soomaali qabiilkaygu waa Soomaali dalkaygu waa Soomaali wax kale aan leeyahay ma jirto qofkii wax kale weydiiya ma leh magac kale hadeerba Soomaali la dhahaa Soomaali hadan ka diidnane oo reer hebel baan ka rabnaa ku dhaanane waa qofkii soo helay hadda ii soo heshay reer hebel madaxweynuhu markii la dooranayay sixirna lama iman laakiin dadku waxay jecel yihiin buu yiri wuxuu yiri xoogii dalkan idin dhisaya wuxuu yiri 4.5 baan la dagaalamaya wuxuu yiri musuqmaasuqan la dagaalamaya arintaas in lagu raali aan laga ahayn ma kula tahay oo uu ku fashilmi doono إن شاء الله إلهي درتس كم فشل مايو because غرفة بلادك هدو حق إلهي كتاعي أو وحو أفكي سكير أوركي سنة أي كتيرتو ما فشل مايو هذا يسأل لكن كتيرين أو قيامك وتوقف فشل مايا لكن هذا عد الله كه إلهي درتي ويري إلهي درتي وحقوق قطنا أورا وما فشل مايو كمان فشل متونه ما فهمتي إلهينا هلا جرب جرو ومدة مساكين تقول لك حاجة درية هاي أو دلك سمون قرية هاي لليه أنا كقبيل بدن يعني أنا كم جعسي بدننا إلهي حق هذا كل حوص صاروا إلهي إنها وجسور ديب إلهي كيسو بحين الله أقدره ما فهمت إلهي ومدة مساكين تنقطي على الله كدر قاضي الصومالي ودنا الله كهو هو أي قبيل كل وعد علينا الوح ماني وصل علينا يلا إلهي هكدر قاضي بالكوز وجهل النما وربادين النما وقشوع النما وواحد قال بحال ده قدوع النما وواحد قال قسم أنت ونقليه هاي كدم بيسو جاهل النما ما فهمت جاهل النما يعسر النما كدم بيسو قف مثلنا أو مسلم أو صومالي أو ولالك شهادنا إيه أنا أترى أنا كافي أنا كان نستسلم كنتش أتقول إيش أمريكا يلقيان قفك عندي سكوس على الويدين قفل بل الويدين قفك أفكي سكويرنا الويدين قفك لما الويدين ما فهمت يا ولال ولا اللي الرجي بابا حتى هذه ما شاء الله والجود عيي الرجي بابا لقى إلا يعني اللي يراد هذا هل كان عبد العزيز محمد حسين وعليه هاي قبلنا واحد كنا هذا ما لقبته
ده gabadhan waa ureeda ma galahayo ilaahay hadii ay qabtana u barakeeyo haday saqabina mid khayr qaba Allah siiyo ninka Cabdulaziz la yiraahdo ayaa yiri wareeda bal gabadha weydii ma la qabaa ku dheh waa reebid baan u maleynaa ma aqaan ninkan meel ka yimid Allah ku barakeeyo hadaad qabto hadaad haysana mid khayr qaba Allah ku siiyo walaalay ma ku sheega ana u jawaabayay sugin hooy haye mid hadda ka hor waxaan ka jiray riwaayad ku dhigahaya iska qooqow adaa qooqay maxaa ku qooqda iska qooqow adaa qooqay maxaa ku qooqda haye maxaa laga waday waxaa laga waday waxa si uu ka wada siga u taala laakiin ana hadda u sheegayo waxaan ka wado haye adoo Soomaali ah oo ku salaysan qabiil Cabdulaziz Ahmed Xuseen Maldariga waa gartay adoo Soomaaliya he oo qabiil ku salaysan haye oo aqliga uu qabiil dhaafaynin haye oo ayayinka iyo hooyinka qaxiyay haye oo gabdhihii ni kufsaday haye oo aaka ku dhameeyay haye gabar Soomaaliyeed ma geedid baa laga yiri adoo caqligaaga uusan dhaafaynin reer hebel baan nahay iyo tol beelay iyo ka baxay iyo galay adoo dalkaagi soo gubay oo qaxooti iyo kufsi iyo silic iyo saxariir hooyooyinka Soomaaliyeed oo adigu aad kamid tahay ama gabdhaha Soomaaliyeed kamid tahay caawa Seattle cornerkii Mareykan ugu dambeeyay dhinaca kale Japan uga dhow joogta halka geeyay يعني نما جيان ميا الذي رجع Soomaaliyeed حلال عليك قبلها Soomaaliyeed ay la tashanaya wiil Soomaaliyeed guursanin aan dhiilaha inta ay dalkeena beel ku sheegaya haday ay la tashanaya waayo maanta meeshaan jooga dul igama shisheeyo dul wax la dul dhahay igama shisheeyo ma fahamtid waa gart waa ciriyo dul iyo biyo loo kala garan waayay iga shisheeyo oo indhaha ku gaareenin waa gart halkaan waxay keenay cadow kalima keenay wiil Soomaaliyeed bay keenay kaftayda soo tuuray waa gart opportunity iyo noloshayda inta ugu qayb badnaa ama ugu dhalinyarada ama ugu qurux badan qaxya qaxootiga rafaad ku dhameeyay haye intii kalena ku cunay sax anoo halka wata oo daal ku samangol yahay garbasaar la'aan soo galay wadanka adduunka ugu dambeeya cid kalena ima keenay wiil Soomaaliyeed bay keenay waa gart marka inuu idho ma lagu qabaa gabar Soomaaliyeed maba geedide gabar Soomaaliga iska daaye anigu gabarba maba ihi islaan weyn baan ahay midaan gabar bay la noqday waxa tahay waa lagu soo anqaltaagay waxa ku tiraahdaa gabar Soomaaliyeed ma gabdha gabar nabada kuma siinaya lagu yiri marka walaal halka uga bax kaftanka sheekada kay walaashay ninka qoqayo maxay ahayd ninka ugu dambayntii ummadda Soomaaliyeed inay walaaloobaan oo heshiiyaan colaadda iyo abaarta ilaahay inuu ka saaro roobna ugu ducee iyo barwaaqo iyo nabad walaalnimo iyo islaamnimona ma faraysaa inay heshiiyaan oo iscafiyaan oo gacmaha sidii madaxweynuhu uu yiri war ilaahay buu yiri cafis aan weydiisano war aan iscafino war aan gacmaha isqabsano saddexda eray baan xasuustaa wallahi walaalle rasuulkina cali salaam baa u sheegay waxay moogeen ma jirto oo malaynay mid aanu ku dhahay inay ku yeelaayeen aduguna maalin baad haday yeelaayeen wax ilaahigeena qofku rixinka uu soo sheegay oo nabigeena uu soo cali salaam soo dhiibay qofkii qaadan waayay aniga oo saaka islaan meel fadhida ah buu qaadanaya ismalihi ilaahay ha ku anfaco mid ilaahay u soo diray ma fahamtay oo ma sheegay anigu ma sheegay ilaahay ha ku anfaco Allah ku qaata Allah ka dhigo ma gartay صح Soomaali roobki 3 bari 4 bari bay roob doon sameeyeen oo ilaahay bariyeen ma fahamtay صح 3 bari 4 bari already waa u curtay haday ilaahay bari lahaayna mar hore u curan lahaa abeertaad arkaysan last 3-4 years uu dalka Soomaaliya ka jirtay 2015 dalka Soomaaliya aad tagay abaartuna waa taagnay waagar ma fahamtay ilaa hadana waa taagan tahay muuqaalkeeda iyo arageeda ilaa February baa nagu horeysay iyo meel la soo gelinayo baa laga qaylayo dadkuna mar hore xoolana mar hore dhamaan dadkii oo dhamaanaya lagu inta kala qaaday weeras dadka xagee jireen ma maqnayn emiiriyuna ma maqnayn facebookna ma maqnayn dadkuna ma maqnayn maxay intii waxa lagu sii jeeday wax kale ma fahamtay hadana waa laga sii jeesanaa anaga waxa la dhahaa reer maalin guur baa hal maalin baan calanka lulnaa hal meel baan lulnaa doorasho iyo waxa naga wasiir iyo madaxweyne lagu sii jeeday saddex labadii sano la soo dhaafay waxa lagu sii maqnaa halka dadka baahan baaba ay loo arki waayay صح ugu dambayntii dadku inay heshiyaan oo walaaloobaan ma ugu baaqaysaa ilaahay ha u kaso waa ugu baaqaya ilaahay ha u kaso ilaa qof waxa laga yaabaa ilaahay inuu qaade yaa waxba
waxbayana ka baqaylin allah u kaso aad iyo aad bad walaashay u maasanta barwaaqada adduunya midda aakhiraba allah ku siiyo allah kaa farxiyo sharka adduunya sharka aakhiraba allah kaa dugo annagana hal shay baa ina dabcasar oo ku leeyahay Soomaalidu sheegaya ma siin kartaa 1 minute waxaan leeyahay eedda ay u soo jeedinayaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya dib ha u noqdaan eedda qabiilaadka ragga Soomaalida meesha maanta la doortay ama la dooran doono qabiilaad baa keensaday raggaas ma keensan weynay ogaadaan waxaa keenay baarlamaanka qaarna wata qaarna qabiilaad baa dib ha loogu noqdo qofku meeshu ka soo jeeda iyo ciddii keensatay ninkii aan maanta ra'iisul wasaaraha oo aan laga raalli ah maxaa wasiir oo laga raalli ahayn ciddii keensatay dib hadday ciddu u ka dhashay tirada ma anaa keensan oo ay yidhahdo baarlamaanku annagu ma anaa keensan kabacdi xisaabta ra'iisul wasaaraha loo soo celiyey madaxweynaha hal la yidhahdo maxaad ku keenteen markan cidna in ku qasbin aad ninkaan noo keentaa annagu kana rabnay laakiin ha laga daayo eed aan meel socon dalkan ayaa lagu baabin waxa indiin inta ka sarreeya inay arkaana ilaahay baan kaga baryahaya laakiin la xisaabtaba baarlamaanka iyo qabiilaadka weli qurunka ku jiro oo nin jacaylsiga wada iyo baarlamaanka nin jacaylsiga wada la xisaabtama ragga ayagaa keensaday ma aysan keensan hadday keenayaan hadday oo ra'iisul wasaaraha la doortay 5 days kuma qaadateen muusan waayen 26 nin oo jaamici oo wax baratay oo cid walba ka dhalatay muusan waayen waa lagu kasbay intaasoo wiig bay ku qaadatay in dib u cesho oo sanka laga geliyo صح انت هنا ogaada been sheegaya ayaa lagu dhagaa nag maanta rag ayaa lagu dhagaa rag ha laga fuqo dalka dawladda ayaa dib loo celin raggan dadkana ha lala shaqaysto rag xisaabta u baahan ha lala xisaabtamo qabiilaadkana ha la joojiyo ilaahay inta ka cabsataan adduunka baa inay isticmaalayeen ku baabiinaye qabiilaadka ha la joojiyo ninkii xoog hayo والله waxaan ka codsanaya oo xoog oo qatar oo malyan ama maarta jalsa milyaneer ah ama qabiil xoog badan ka dhasho bilis waxaan ka codsanaya kuwa soo dhaqita lagu leynayo hindiya iska ragii xumaay hindiya u raayay ay intay badooda ka soo qabsadeen ay leeyihiin burcad badeed ma ahayn waxay ciidanka baday ahaayeen badooda ka noolaayeen kuna noolaayeen ma fahamta laga soo qabsaday صح بليس كواس نوسو سيداي رجي حوق لو كواس نوسو سيداي هو عربها يمقفها نوسو سيداي انت اسكري يعني كبرينا حاول تاغناني لا قبيل بالك واني في حوق انت سالين كغتا السلام عليكم ولا رالها مغعاغي محو ولا الحليم الله يدها حليم وي الدنيا اخرب الله اكبر واقي ولا السلام عليكم ورحمه الله امين وعليكم السلام ما شاء الله 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 ما أنت قبلها الرباء أنا قبلها كلية بس وحي قبلها يصوع قال إذا عدان قبلها بصيني يا دك بعد ضد كاس ضد مسلم وهي هالكاس سودي وعربيد اللايك وصو سارة قبل ناس اللايك وصو سارة كل جين قبلها أنك قبلها هي قبر بان الله يا لندن شوكته قبل دي تلو آوي إيكاش إنديانا إيكاش gabar reer London away reer London walaalow hello walaalay soo dhawow waan dhownahay soo dhawaada walaalay wa alaykum asalaam gabdhaha ayaa maaragtay aqligii ku haray iyo kartidii iyo dadnimadii gabadhii garowe waad maqlaysay gabadhii Seattle waad maqlaysay adiguna codkaaga soo dhaw xagee ka soo hadlaysaa walaal waa kaa qaada walaal xagee ka soo hadlaysaa walaalkay Soomaaliya ka soo hadlaya khad kalaan ku jira fadlan wax yar ka bacdi igu soo celi حاجة كسر الله سوى الله كسر علي هولن يكسر علي فضلا ها هولن ما كسر الله سا دلك هولن كسر الله ولا شيء دلك عاجي يضد عاجي يا أمد هذه يا دين تادي محد له وعلى أمد صومالية إلهي حقا هاي وقرتي حق الله تستاهل له هاي هالو Soomaaliyeed waxaan leeyahay qabyaalada iska daayaan oo qabyaalada waa tan soo qixisay
صح maalin kasta waa bixaysiin waddankiiniya aadaysiin markaa isdhahana ma aadayno meeshaan weli fadhinaan baan صح maxaad leedahay markay naga daaya qabyaaladda miyaad leedahay qabyaaladda aan naga daayaan ragga soomaaliyeed waa waxa dhibaatada wado haweenka soomaaliyeed caqli ha isku yeelaan lacagtay raggaan u aruurinayaan xayawaanada ah ha iska daayaan qabiil waxba uma taraayo naag soomaaliyeed aniga waxaan aaminsanahay inay isa qabiil lahayn qabiilkay rabtay ilmo u dhashaa ay guursataa maxaa la dhihi jiray aniga hadda kula hadlayo 10 qabiil ayaa famil ii ah marka haddii lay dhaho meeshaas ma aadi kartid meeshaas kalena gobolkaas ma tegi kartid oo ayaydaa aabbaa dhashay uma tegi kartid ama ayaydaa hooyadaa dhashay ma booqan kartid waxa soomaalinimo lama dhaho wax soomaali la dhahana maba jiraan ba aaminsanahay Ethiopian iyo waxaa jiraan iyo Kenyaland saasaan aniga aaminsanahay madaxweynihii imaado ninkii imaadoo kale waxaa leeyahay doofaar waaye marka soo saas aaminsanahay marka waxaad tiri Soomaaliya 10 qabiil ba wax ku galeen mid ayaydaa bay dhashay qabiil kale ayaydaa hooyay dhaleen qabiil kale waa awowga qabiil kale waa reebtiga qabiil kale waa ninkaaga ama waa hadii aadan lahayn waa abtiyaasha Soomaali waxaan leeyahay fiiba haweenka Soomaaliyeed aniga taasoo maanta hooyaday 13 sano ma arkin maalin dhaweeda Muqdisho tagay markaan saas ooga tagtay diyaaradii la keentaa taa way soo carartay oo CID-da la qarxiyay ma fahamtay صح marka ummadda Soomaaliyeed waxa waaye Soomaalinimo wax rabo ma joogaan waxaa jooga qof dhaha u doodo uu qabiil wuxuu sheegayo male 10 wadan soo marnay intaasaan soo tirin waxaad tiri 10 wadan baan soo maray baad tiri waxaad tiri 10 wadan baan soo maray intaasoo wadanna waa taariikh baan ku soo maray 13 sano anoo jidlaan Soomaaliya walaalow gabar baa hadlaysa ay fadlan ii kaadi maxaad tiri 13 sano he anoo 13 sano jiraan Soomaaliya أدر قاعد بنسلفانيا الخط كلام كشرة إيكادي أدر خط كلام كشرة إيكادي يعني ما خصب هاي إيكادي قبر بالله لي هاي ولا لي هلو واحد تري صدق يتوصل أنا كشرة الصومالي كسو تجي والله لو صومالي أنا 13 جرا كسو تجي wadamo badan aan soo maray maalinba maalinta ka dambaysa madaxweynaha imaanayo uu tagayaa ama qofkii صح madaxweynihii adaba waa caynaya doofaar waaye inay waaye inaga sac waaye waxaan inaga sacay ina faarax ma jiraan dadkaan aaminsan qabiilka ha iska dhaafaan qabiilkaan leeyahay qabiil wuxuu tahay wallahi inay si jirin caawo gabar hadda hadlaysa waxay tiri muqdisho reer aniga hawiye fiiri hawiye iyo daaro Soomaali laga qaban Soomaali nabad ma helayso Soomaali cadawgeeda waa hawiye iyo isaaq iyo daarood hadda ku sheega maxay ku yihiin maxaad ku cadaynaysaa waxay ku yihiin ayagii ayaa iscunaayo dadkii kalena waxaa la yiri waa ka tiro badan tahay 4.5 marka aniga wiil 4.5 aan dhalee marka ma yeela aniga wiilkeyga in la yaso haye anigana 5 aan ku jiray balesteela bash صح aniga kula hadlayo wiilkeyga Soomaali waxay ka dhigeen 4.5 ana 5 aan la iga dhigay soo dulinimo ma marka wiil iyo hooyis in la kala saaro marka ma waxaad leedahay nidaamkan ma soconayo nidaam soconayo male ninkii lacag ku dhiibo qabiil ninkii gurbaan ugu garaaca qabiil waa cadawaan taasaa ku leeyahay hadda aniga kula hadlayo wiilkaygii aniga haddaan 4.5 kala nahay waxaan u arkaa dulinimo hooyooyinka Soomaaliyeed
soomaali hadda magaalada muqdisho aad ka timid gabar soo hadlaysa waxay leedahay dadkii xanuunaha ku dhacay aniga kula hadlaayo magaalada ku dhashtay mana tegi karo ma fahantay maxaad la tegi weyday maxaa ku tagaa meel oo markaad aad joogtid oo caawo loo biri qofki seexdaba meeqa qof oo ila joogtaa meesha inta ka soo dhimata aan aqaanaa 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 aan dhihi karo oo maxaa la dhihi jiray hilibkoodii la soo aruuriyey waa gartay cola marka Ethiopian Muqdisho soo galay hooyada Ethiopian 3 maalmood haysto waayeel ah meesha la aada intay taala meel la aada ma taala meesha hooyada maxay u dhintay Etoobiyaanka waxba uma dhimin xaafadii laga qaxay way soo laabatay ayagoo dad badan oo xaafadii islaamiga oo laabi ay ka tageen aruusanaya bariga Ethiopiankii lala dagaalamay hooyada 24 saac ay haysteen way soo daayeen xaafadii odayaal badan oo dib ugu soo noqday islaamo oo alaabo iyo raashin ilmahooda u soo waa gartay madaxweynihii la doortay fidna oo dhan dadka fidnada ka oogaya Soomaaliya aan hadda Soomaaliya waxay igu dubayso 2 months ka soo wareegtay dadka fidnada oo dadka dibadda jooga waaye dadka fidnada Soomaaliya ay ka tagi lahaa dadka qurbo joogta waaye sababtoo ah qof kasta qabiil uu calan u lulaa qabiil qaran ma noqdo ma fahamtay qabiil hee qaran ma noqdo qabiil qaran ma noqdaan ku dhahay 10 qof oo waxaa arkaysaa media iskugu jawaabayso mid daaroodu hay marka qarankaa ii sheegaysiin aawo nimanka aniga maamulaayo ma adoo caysabayo oo la caysabayo waxaan dhihi jiray daayir calisow ayaa maamula ragga Soomaaliyeed waa adiga waa daayir calisow waa kuwa kaloo kasii liito ma fahamtay waa gartay marka wax imaamulo meesha ma joogaan dawladna ma jirto madaxweynaha waxaa leeyahay waa la doortay waa taageeran maxaa taageerteen madaxweyne qof taageero ma leh qof kastaba beenuu sheegaya haddaa madaxweynaha taageerteen wuxuu wada fiiriya wuxuu wada markay socon waayaan shala adaa keentay berrina niyo waxaa wadid ma soconayo hala dhaho laakiin madaxweyne ooba maxaa la dhihi jira hal bakoorad keliya inta loo dhiibo bakooradda kale laga qaatay waxba meesha kama shaqaynayso marka Soomaali wax la dhaho ma jiraan walaalayaalow hana lugoynina dadka lugoynina Soomaaliyay ilaahay ka cabsada qabiilka iyo waxa u doodaysiin iska iloowa idle maxaa tiri qabiilka iyo waxaad u doodaysaan iska ilooba ilaahay ka cabsada miyaa tiri ilaahay ha ka cabsadaano qabiilka iyo waxay u doodayaan gab ha ka dhahaana aniga taasaa leeyahay muqdisho ha ka imaado muqdishona waa la haystaa garow waa la haystaa meelaa la haysan mala maante badii muqdisho iyo badii kaleba sun baa hadda lagu soo shubay cusub iyo suntii hore oo soo butaacday badda mar horaa lagu shubay sunta hadda kuma cusbee oo malaayigiina banaanka hore Soomaaliya wax yar daqiiqad ka bacdi ugu soo celi maxaa tiri walaalay walaalow badda berbere waa la gatay tii boosaas baa la gatay ma garatay haye muqdishona haddii sun lagu shubo dee waxba lama arkaas waddan nin aana qabin muxuu sheegaa waddan naaga qabaa annaga haysanaayo rag ma qabnee gabdhaha Soomaaliyeed meel kastay joogaan maxaad kula talinaysaa raggan qabiilaystayaalka ah oo anigu waan ka mid ahay waxaa kula baaqayaa hayuutada ilmahooda ay ka dhimeen yaysa qaaraan ku dhiibin hadday qof wax sinayaan hooyo baahan iyo ilmo baahan ha siiyaano qabiil yaysa waxba ku dhiibin gabdhaha Soomaaliyeed hurdada ha ka kacaano ilaahayna ha ka cabsadaano qabiilna god lama galaayaan ma waxaad leedahay qabiil ninna ha ku taageerina hooyooyinka Soomaaliyeedow ma waxaad leedahay qabiil ninna ha ku taageerina gabdhaha Soomaaliyeedow بنسلفانيا ولا ويك هذه يا ولا ما تري دولتها واريا بنسلفانيا قبر باخذك ما تري ولا لي
soomaali maxaad aakhir kelmadaada ugu dambaysa ay tahay aniga kelmadayda ugu dambaysa ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay hurdada ha ka kacaano dadkan cawaanta Kenya land iyo Soomaali ma jirte Kenya land iyo Ethiopia land ay jirta adiga Soomaalida ay dawladniyo ma iga dhaaf ma saasaad leedahay Soomaali wax la dhaami jira Kenya land iyo Ethiopia land ay jirto waxa waaye waa meesha wax hadalkan aan sheego maanta uu soconayaa waqti badan hadii Ilaahay cimri nagu gaarsiiyo ka soo wareeganayso inay Soomaali keenina oo ku sheega ma fahamtay waa gartay هلو صوماليا السلام عليكم عبد الرحمن عبد الله ولا لو قبر باكو جرتي صوماليات يدي ميان كجرا ما كتر لك حاجه دبنا صوماليات بقول لها هيسا وكذا كان سنه حقيقه سؤال ليسا adeerow gacaliya 5 wasiir baa la idin siiyay reer Hargeysa Somaliland andhehe 6 wasiir baa dawladda laga siiyay arintaas ma ku qanacsantiin subhanallah عبد الرحمن وحب شيء يا وايه wax ka fiican bal adigu oo lagu mashquulo noo sheeg bal noo sheeg wax ka fiican waxaan idin sheegayaa ka fiican wadankii dhammaa ee Soomaaliya la oran jiray ayaadan xorba ahayn bay maxad jiro iyo wadan dadkooda hagaajisteen waxa ku hawlihiisa ay dhamaysteen inaa waxaaba ku qadaa wasiiradan waxaan madaxweynuhu magacaabay rasuulka magacaabay ay tahay awood dheera inaan isku mashquulinina uu isku mashquuliyo siduu ciidankiisa u dhiso waxa weeyaan wadankiisa maalin walba dhoobli laga soo gelayo ee aan ka haynin maxay dhahdaan ciidamadiisana aan waxa weeyaan tiradooda war u haynin ciidamadiisana aan tiradooda war u haynin inuu madaxweynuhu halkaa ka bilaabo oo uu waxa weeyaan u doonayo in Soomaaliya ay soo noqoto inuu halkaa ka bilaabo ayaa fiican Cabdiraxmaanow waxaa tiri ciidamadiisa uma tira koobnaa tiri miyaa waa taas madaxweynaha Soomaaliya wadankiisa xor uma aha si waa madaxweyne fiican oo daacad sida wajigiisa ka muuqata ilaahayna waa ugu rajaynayaa laakiin wadankiisa xor uma aha wadankiisa waa laga haystaa waa looma ogola cadowgaa ka haysta waxaa ka haysta maxaa dhahay wadamo shisheeyo deris sheeganaya ka haysta waadigii arkayay uhura kenyatta inkii loola jira madoobaaye waxaa ku leeyahay siduu waxa weeyaan Soomaaliya ugu soo xadgudbayeen weliba ugu faraxsanaa waad arkaysay waxay tusinaysay arrinkaasi waxa weeyaan cashar buu ahaa ninkaasi uu dadka Soomaaliyeed u dhigayay casharkaasina wuxuu ahaa inuu leeyahay waa wadankiina xor ma aha ee annaga haysana ayuu lahaa waxa weeyaan taasoo quran maaha waxay samaynayaan waxa weeyaan wadamadan dariska iyo wadamadan kale xataa wadamadan gaalada cadaankaas iyo Mareykanka Ingiriis waxay samaynayaan ay Soomaali si u liidayaan arrinkaas soo celiyaan oran lahayd madaxweyne farmaajo iyo rasuul khayr haddii wax qabanayaan waxbay Soomaaliland ku mashquulin Soomaaliland way xoreysan tahay oo waa wadan dhisan oo xoreysan haddii waxa weeyaan hadhow waa la isaga iman karaa waa laga wada hadli karaa laakiin Soomaaliland maanta in lagu mashquulo wasiiro waraabowtaag baa dhamaano waraabowtaag waxaa soo waraabowtaag baa dhamaano Cabdiraxmaanow maxaad raadaan waraabowtaag ayaan nidhahnaa waxaas oo kale waxaad u taqaanaan wasiiradaas oo kale waxaad u taqaanaan waraabowtaag wasiirada qura maayo aniga wax markaan wax uga qiyaas qaadanayno yani arrin aan faki jirin baanu nidhahnaa waraabowtaag markaan waxaan leenahay mudana madaxweyne iyo ra-iisul wasaare nimankaad magacaawdeen waa waraabowtaag waxbay da tari maayaane Somaliland waa xor si sharaf leh ayaa waxa weeyaan Somaliland aynu uga wada hadlaynaa haddii aad Somaliland aad damac ka leedihiin oo doonaysaan fikir ka qabtaan sharaftii
somaliland idinku imanaysa iyadoo xora oo fiican oo waxa weeyaan ciise iyo sharaf ku nool laakiin wadankii midaadaanu ka naxsannahay oo dulaysan oo waxa weeyaan aan xor ahayn maxaad aniga wasiirana siisaamay inkiibaaba wasiiradiiniyaana tabcaani marka ummadda soomaaliyeed maxaad kula talinaysaa maxaana xalka u ah oo dulligan iyo darxumadan ay uga bixi kartaa waxaan kula talin lahaa madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo waxaan kula talin lahaa inuu kaashado dadka ahlulxalli walcaqdiga ah ee caqliga leh waa ka go'ay madaxweynaha waxaan leeyahay buu yidhi inuu kaashado dadka ahlulxalli walcaqdi ah dadka caqliga leh waxna ka go'aan waxna ka xirmaan dadkaas ha kaalmaysto oo ha kaashado ayuu ku yidhi madaxweynuhu ha kaalmaysto dadka ahlulxalli walcaqdi ah haa walaalkay cabdiraxmaan anigii baa xaggan kaa soo garaacay marka waxaad maraysay soo dhawow madaxweynuhu dadka caqliga leh ha kaalmaysto waxna ka xirmaan waxna ka guntamaan odayaasha iyo ganacsatada iyo culamaa udiinka iyo waxgaradka walaalow cabdiraxmaanow sidaa weeyaan soomaali dad caqli leh kama dhammaanin soomaali culima kama dhammaanin soomaali waxgarad kama dhammaanin ee waxaan leeyahay madaxweynuhu inuu wax weeyaan iyo ra-iisul wasaaruhu iyagaa maanta waddanka badbaadin kara inay la tashadaan dadkaas oo ay iska daayaan wasiir yaroo waraabo taaga oo meelaha ka soo kacay oo shaqataga wasiiradani waa shaqatay inay beriis shaqaystaan bay doonayaane haddii waxa weeyaan beriiskooda u hirgalaan beriiskooda shaqaysanayaan haddii nidaam wanaagsan la tusana nidaamkiibay ku shaqaynayaan moogta waa gartay marka soomaali waxaa badbaadin karaa inamadan yaryara shaqataga siifiyada soo xaraystay walaal ma aha soomaali waxaa badbaadin kara dadka caqliga leh inta la kaashado in waxa weeyaan soomaali waxay ka baqdaa cadow ka baqayaa xuduudda military ama waxa weeyaan awoodda ayay ka baqdaa soomaali waa la ogyahay cadowguna awoodda uu ka baqaya marka ma waxaad leedahay madaxweynaha militariga soomaaliya hala dhiso waa in waxa weeyaan ciidan madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo uu ciidan dhisaa waxa weeyaan awood tusaa waxaan dadkan dulliga ah aan cidba waxaan ku iyagaan waxa weeyaan cid ahayn soomaali ay sharaf lahayd ee waxaan ku ay ahayd libaaxa afrika ay ahayd iyagu dulliya waa inuu tusaa awood waa inuu tusaa waa inuu caalamka kaashadaa iyagoo caalamka kama xigaan oo kama afdheero oo waxa weeyaan kama aqoon badna inuu caalamka isagu la hadlo oo yidhaahdo ciidamada noo dhisa waxa weeyaan warkan iyo waxa la iska dhex wareegayo odaybaa wax cambaareeyey odaybaa yidhi qabiilkayga wax layma siin iyo waxa intuu dhagaha ka furaysto waa inuu ciidanka soomaaliya dhisaa waa inuu waxa weeyaan guntiga dhiisha iskaga dhigaa waa inuu wada tashiya sameeyaa kadibna waxa weeyaan uu duulaan qaadaa waxa weeyaan uu leeyahay waxa weeyaan cadowga wax ku arkaan yani uu cadowga tusto ka saari karo waddankiisa uu xoraysan karo waa inuu tusaa cadowga waxaad ka dhawaajisay madaxweynaha kenya uhuru kenyatta fuliga oo amar la'aan ku soo galay ciidamo dalka kenya magaalada dobley si uu ugu muujiyo dadweynaha kenya in soomaaliya ay hoos timaado haddii ay ku idmaayo dalkaasi kenya waa kenyaland sida gabadhii kaa horreysay ay sheegtay ee soomaaliyeed ee caqlileed ahayd ee hoolan ka soo hadlaysay halkaas shir baa lagu qabanayaa beesha caalamka iyo igaad oo malaayiin iyo balaayiin dollar saad og tahay dalka ingiriiska iyo caalamka meel walba lacag baa laga aruurinayay oo magaca soomaaliya lagu aruurinayay dowladaha igaad waxay leeyihiin annagaa mas-uul ka ah lacagaha soomaaliya la siinayo waxay leeyihiin ciidamadanada malaayiin dollar hanala siiyo waxay leeyihiin qamadida iyo gallayda ku quruntay xafiisyada bakhaaradannada lacagtaas hanala siiyo si aan u geyno dalka soomaaliya oo dabcan kansar iyo balaayo ah teeda kale waxaa leeyahay madaxweynaha laftigiisa waxaa laga yaabaa in kenya iyo etoobiya ay ku sumeeyaan magaalada nairobi ay doonayaan inay cuntada wax ugu daraan bal ka waran waa waxyaabo dhici kara weeyaan inuu madaxweynuhu ilaahay ha ilaaliye inuu digtoonaadana way tahay inuu waxa weeye securitygiisa iyo amnigiisa uu waxa weeyaan is-ilaaliye intuu is-ilaalin karana way tahay cadowgu taalo ku dhigan maayo kaa nixi maayo kuguma faraxsana laakiin wuxuu isku dayayaa inuu siyaasad ku isticmaalo siyaasad kugu baabi'iyo kaa reer magaalsanaado gaalada waxa weeyaan kaaga fara dhuudhuubnaado ayuu isku dayayaa
markaas si aanay taasi u suurtagelin madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogtaba madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inaanu ku mashquulin waxa xaasilka culimadu waxay yiraahdaan shayga xaasilka sidiisa laguma mashquulin moogtay marka shayga xaasilka waxaan ka wadaa wadanka inta amniga ah ee nabadda ah ee waxa weeyaan xorta ah inaanu madaxweynuhu ku mashquulin oo aanu degdegin ee uu ku mashquulo inta baaba'san ee la gumaysanayo ee lagu dultumanayo ee dariiska loo soo xidhanayo ee waxaan ku labta la isaga garaacayo inuu ku mashquulo shacabkiisana mideeyo xukuumaddiisana mideeyo ilaahayna hala qabtay waa hawl culus ee waxa weeyaan hawsha u guntado waxa kaliya hawsha laga bixi karaa waxay tahay inuu la tashado dadka caqliga leh waxa weeyaan diinta iyo caqliga u saaxiibka ma aha dadka xamaasadda iyo qabyaaladda wado ma aha inuu la tashado dadka caqliga iyo diinta ku shaqeynaya ayaan qabyaalad ku shaqeynay inuu dadka la tashado caalamkana madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo waa nin fiican oo reer magaalo ka muuqata inuu caalamka waxa weeyaan u furfuran yahay ee inuu saana ku sii wado oo caalamka xidhiidh la sameeyo oo aanu waxa weeyaan dowladahan waqtiga ah ee waxaan ku yiri shalayto ahaa dadka adduunka Afrika wili bariga Afrika dadka wiliida waa inuu ka sareeyaa isagu oo waxa weeyaan uu qabtiisa tusaa caalamka waxa weeyaan caalamkana si usluubaysan ula hadlaa kadibna markaa uu soo dhiciyaa sharaftii iyo waxaan ku yiri kartidii ay Soomaaliya lahayd markaa uu soo dhiciyo ayuu hadli karaayo uu ka hadli karaa waxa weeyaan daaqilkana ka hadli karaa oo oran karaa war cadawgii waan idinka jabiyay dabadee wadankaygu waa ay xormaantay bal haddaba hoostii aan isugu soo noqonay intiina hoosta joogtay bal iska warramayno saad wax leedihiin nin la yiraahdo mahad cabdi cilmi nin la yiraahdo mahad cabdi cilmi oo yani kule ma sha Allah tabaaraka Allah wuxuu yiri isaaqu waa dad maskax badan arday maskaxdaas maxaad war isaaqow warde Somalilandiyay war maskaxda noo keena walaalayaalow Cabdiraxmaan oo adiga iyo walaalka aad sheegaysaa waa mahadsantihiin walaal Soomaali de marka la fogo meel marka tagay haddaan xitaa iyo siyaasad iyo waxayna kala kaxeeyaan meel idin kama tagayno laakiin waxa weeyaan Somaliland meel ma jirto Somaliland waa Somaliland sida ay weligood Somaliland qaarada kama dhex go'ayso inta ka guurto la qaadi maayo meel fog lagu tuuri maayo halkii ay ku taalay ku taalaa Soomaali way suran yihiin kawdhe waagarta laakiin waxa loo baahan yahay madaxweynahaas Ilaahay ha barakeeyo hawl culus baa haysee in loo duceeyo lagana aamuso balse wax u galo lala كعل هالكاس محاتري عبدالرحمن وحن قضاء ولا نقول انت وحوي العبد ولي كاس مرضى انتو السود احدى Soomaalida uu Itoobiya u dhoofayo isagoo sarkaal Itoobiya soo dirsatay uu Itoobiya u dhoofayo iyadoo aan madaxweynihii jamhuuriyaddu waxa weeyaan ka warqabin intuu isagu Itoobiya iskii ugu tago wuxuu doona kala soo hadlayo wuxuu doona kala soo saxaxanayo taasi waxay tusinaysaa in dawladda Soomaaliya ay jirin oo waxa weeyaan madax banaani ay jirin wali kaasta intiisa uu maamulanayo What